waxaan markaa u sii yara gudbi lahayn asraaru tacadudi fi zawjaat bal sirta ku jirta ama xikmadda ku jirta ee loo fasaxay mid ka badan in la guursado taxliil cilmiya baynu samaynaynaa dumarkuna waa meelahay xasaasiga ka ahaayeen yay casharka ka caranin oo ay nagu xanaaqin waayo laakiin waa nadara cilmiya wixii inaad aqoon ahaan u ogaato iyo diin ahaan iyo in la yeelaa way kala duwan waxa laga yaabaa dee adiga oo aan yeelinba in haddana wixii dee inaad rumaysato mar walba kale hadduu ilaahay sheego waa faral waa qur-aankii kariimka ah marka u horeeya sababaha keenaya waxa ka mida bay leeyihin arrimahan soo socdo toddobada ah dumarku marka la eego xagga dhalashada way ka badan yihiin ragga marka la eego xagga cimrigana way ka cimri dheer yihiin marka la eego xagga geeridana ragga way ka geeri yar yihiin bal saddexdaasoo la isu geeyey maxay dhalayaan yusaawi farabadnaan bay dhalayaan cimrigoodii wuu dheeraaday geeridoodiina way yaraatay dhalashadoodiina way badatay saddexdaa marka la isu geeyo raggii way ka fara badan yihiin wey sidaa daraaddeed baa wadamada caalamka daraasadaha lagu sameeyey marka laga reebo saddex wadan wala adduunyada jiraba dumarkaa ka badan ragga mar walba saddexda wadan waxa weeyaan waa shiinaha iyo hindiya iyo wadamada khaliijka khaliijka de wax lala yaabo maaha ummad badan oo solaana baa joogta marka dadka ku nool meesha la tiriyo dee dad soo shaqo tago ciidan ka badanoo xaasas wadan baa ku ururay oo adduunyada lacagta soo eegtay marka taasi dee dhalashadii maahe waa dad ku soo ururay china iyo hindiyana waxay yareeyay dumarka dee wixii abortionka la odhan jiraa lagu sameeyo waa la soo ridaa marka la ogaado inay inan tahay way soo tuuraan arrin macruuf ahoo dee adduunyada cid waliba ka hadasho oo dhakhaatiirtoodu ka hadlaano marka soo rididii hablaha ayaa badatay iyo dilkii sidaasaa yaraysa qodobka saddexaad waxa weeye tacadudka ama in mid ka badan la guursado diimahoo dhan bay ku sheegnaydba diimaha samaawiga ahee ilaahay uu soo dejiyey oo dhan bay ku sheegnayd bal wax mid keliya sheega qur-aankaaba jiraba kuwa kaloo dhami ka badan baabay sheegi jireenba arrinta afraada jirtaa waxa weeye shaygan la yidhaahdo tacadudka waa shayga cadaaladda ah dumarka la qaba iyo kuwa aan la qabin waxa in tiradii la kordhiyaaba cadaalad ah waayo waa wada bani aadam ummaddii bay ka wada mid yihin haddii muslimiin la yidhaahna waa wada muslimiin marka maa cadaalada in la yidhaahdo dumarka qaarkood nin ha heleen aqalna ha heleen ubadna ha heleen qaarkoodna waa siday u badan yihinba bannaanka ha iska joogaan oo sidii ilaahay uu ku abuuray ee ku dhasheen ha ku dhintaan haddabaana laba qofoo labaduba waa bani aadam marka cadaaladdu ma in dadkii sidaa loo kala reebaa oo qaarna la qadiyo qaarna wax la siiyo mise waxa weeye in la yidhaha wax wada qabo waa aad waxa la wada qabo maya cadaaladdu waxa weeye waxa wada qabo gabadh waliba waxay u baahan tahay inay ninna hesho aqalna hesho ubadna hesho oo raaxo ku xisaabtan loo rasmi ay hesho raaxo rasmi ay hesho raaxada rasmiga waa xalaasha berigii dagaalkii labaad adduunka waa kii Jabaanku Jarmalku dadkii aad u madhay buu kamid ahaa dumarkii baa aad uga batay raggii oo 3 jeer baabay ku soo laba laabmeen gabadh professorada oo reer Almaaniya ah reer Jarmalaba hadlayso waxay lahayd inaan nin rubuci helo ayaa iga roon rafaadka kelida kaliintan aan joogo rafaadsanay laakiin ahsan waxa iga inaan mid rubuci helo waa xaqiiqadii ay soo taabteen waxa faa'iidooyinka iyo sirta ku jirta ay tahay yuqallilu alfawaahish waxyaabaha sinada la yiraahdaa waxay ku yaraataa guurka oo la kordhiyo oo dumarkii banaanka iska joogi lahaa rag la'aanta ku dhici lahaa ila baahi bani aadam baa ku abuuranay haday guur xalaal waayaan sina ayaa dhacaysa wana arinta aynu ogsoonahayo tacadudka iyo dumar tiro badan in la xidhiidho adduunyada cidiidani ma jirto gaaliya islaamba waa la wada ogoliyay laakiin islaamkuna wuxuu ogol yahay in tiradiina 4 lagu koobo oo aan la dhaafinin 4 iyo 2 ilaa 4 xalaal lagu xidhiidho iyo guur rasmi ah laakiin ummadaha gaaladu way ogol yihiin ama 10 ha ahaadeen ama ka badan ha ahaadeen
tacadud in la sameeyo laakiin sina iyo xaaraana oo imika ninku dee xabadun bay leeyihin guurso laakiin hadduu idhaahdo 6 baan la saaxiib ahay ama 10 ka kordhi bay leeyihin haddaad doonayso soo ismaydaan ogolaanin miyaad qasabtay maya dee ku waduun meeshaad doonaysa gaadhsiiyo saaxiibadu ma xadidna bay ku leeyihin sidaa daraaddeed baa dadka waddamada muslimiinta jooga waddamada gaalada jooga muslimiinta ah qaarkood baa hadduu midi guursado ka badan mid oo matal 3 uu leeyahay ama 2 leeyahay mid buu u sheegayaa dowladda inay tahay tii mehersanayd ee rasmiga ahayd labadan kalena maxay ahayn waa saaxiibada buu leeyahay ma saaxiibada ay ahaayeen sax weeye bay ku leeyihin marka la iskuma diidana in tiradii la kordhiyo laakiin xalaal ha noqoto tiradu iyo xaaraan ha noqoto weey xaaraan ha noqotona waxa ku hoos jira ooridii xuquuq ma leh aqalna ma leh ubadkiina cid ay ku abtirsadaan ma leh intaasaa ka soo hoos baxday marka waxa weeye adigu xaaraantana iska daa xalaashana iska daa xaaraantana inoo wad si kale marka loo eego eegmadeenna islaamiga ah takfiir lilumma alislaamiya baa ku jira ummadda islaamku siyaabaha ay ku kordhi karaan ayuu tacadudkaasi ka mid iyo had iyo jeer ummadaha ama qabaa'ilka tacadudka sameeya ee dumar dhowra guursada way ka fara badan yihiin ummadaha midka ku eeg bal adduunyadii gaaladu imika waxay ka qaylayaan muslimka soo badanaya ee ama dumar kororsan guursaday ama dhalmadooduba ay badan tahay nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dumarka raggooda jecela dhalmada badan guursada ummadahan idinku faanaya faa'iidada ama sirta toddobaada ku jirta waxa weeye waa cilaaju lilcunuusa waxaan la yidhaahdo guunnimada dawadeeda wey inay habluhu iska guumoobaan dee dawadeedu waa tacadudka iyo tirada oo waxaa la xarkageel ma wada xidhaan baa layidhi hadday wada xidhaanna ma wada xejiyaan ragoo dhami dumar ma wada guursan karo inta wax guursan kartaa waa in kooban marka intii koobnayd kuwaa ku egaata marka la idhaa intii kale way iska guumoobayaan sidaa aynu hore usoo sheegnay caalamulislaami markaa dib ugu noqoto ama xataa caalamulcarabi waddamada qaarkood baa guurku uu noqday 10% guur la-aantuna ay tahay 90%. labada waddan ee jaarka ah ee falastiin iyo lebnaan guurku falastiin waa 95%. 5 baa guur la da-dii guursan karaysa halka lebnaan 90% guur la-aan dhalinyaradu ay ku sugan tahay marka cunuusada iyo guunnimada ragguna guun baa lagu tilmaami karaa dumarkuna way noqon karaan dawadeedu waa halkan bidhun baa isweydiin loo waateenu soo nidhi dumarka geeridooda maaragtay yaroo dee cimrigoodu waa dheer nebiguna waaba ka sii warramay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka waxaa iman doona wakti buu xadiidku waa saxiix wakti oo 50 dumar ahaa hal nin uu ku beegmi doono oo dumarkaasi waa kuwii uu dhalay kuwii uu xaasiska u ahaa eedooyinkii habaryarihii ayooyooyinkii waxaasuu dhex taagan yahay waana midh keliya sababaha keenayay ka hadleen daraasadaha hadda la sameeyey gaaliyo islaamba waxaa laga hadlay sababaha keena inuu cimriga dumarku dheeraado oo waxay yidhaahdeen jihaaskan manaaciga ama difaaca had iyo jeer dumarka ee habdhiska jidhkooda waxa weeyaan mid aayar socda oo aan daadegin sida ka ragga oo raggu marka uu hore cimri si yara cimriya ee daadiisu ay si yara weynaato difaaciisu degdeg buu yaraadaa u daciifa dumarku laakiin difaacoodu dhaqso uma lume ee uu iska xoog badan yahay qofkiioo difaaciisu uu joogaana waxay sheegaysaa in noloshiisii iyo dee awooddiisii jirto quluubu nisaa aqwa min quluubi rijaal bay dhaah marka la weynaado dumarku ay dhaafaan heerkaa dhalmadayska wadnaha dumarkaa ka xoog badan bay dhahaan wadnaha ragga ilaa uu u egaado marka dambe waa diraasada ingiriisku sameeyeen qaar ka mida baaxiiinihii ilaa 25 jir ina 25 jira ayay hooyadu marka ay dhalmadayso ayay la awood noqonaysaa marka dambe xagga wadnaheeda yaabku u shaqaynayo arinta saddexaad ee keenaysa in geeridu yaraato ama cimriga dumarku u dheeraadaa waxa weeyaan bay dhahaan suluuku lmar'ati sixiyan afdalu min alrijaal habkay dumarku u dhaqmaan caafimaad ahaan wuu ka wanaagsan yahay ka ragga oo iyagu inta badan way isdaaweeyaan ama waaba loo dadaalaa waa la daaweeyaa dumarka iyo caruurta geedka rag la yidhaahdaa wuxuu dhakhtar tagaa markuu soo dhaco markay naftu qabataa unbuu leeyahy baryahan waan il darahaye
bal haddaan dhakhtarka tago dumarkii iyo carruurta laakiin way iyaguna aad bay u dadaalaan way isla socdaan oo way isdaweeyaan suluugaasina waa arrin keeni karta bay yidhahdeen jiritaanka qayb ka noqon karta waxay yidhaahdeen almar'atu aqalu mumaarasatan lilcaadaati sayi'a khataraha ragga iyo dumarka khatartu iyamay ku badan tahay raggay ku badan tahay dagaalada waxa gala waa ragga gaadiidka iyo shilalkooda aad u fara badan meel kasta oo khatarahoo lagu dhinto dee dhimashada ilaahay baa haye haddana khataruhu raggay ku badan yihin dumarka waa ku yari waxay yidhaahdeen oo kale almar'atu ashaddu taxamulan lilamraad liikhtilaafi khalaayaahunna min khalaaya arijaal unugyada ilaahay uu ku abuuray rag iyo dumarka marka la eego dumarka adkaysin badan bay yidhaha xagga cudurrada waa laga yaabaa inuu dee ilaahay u diyaariyey ilaan waa warshad dad soo saaraysa warshad dad soo saaraysa qof bani aadama qof ku dhex nool yahay weeye marka inuu awood dheeraada iyo antibayn iyo xanuun bi'iyo dheeraada yeesho qofku oo jidhkiisu uu sii daynayo waa wax ilaahay u gartay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa islaantaada intaa xanuunka hayse iskala taa hayse kugu shaqaynaysa haddii adiga uu kugu dhaco inaad dhakhtarkaba tegi lahaydba iyadu way iskala luudaa inteeda waanay kugu adeegaysa laakiin haddii inteedaasi kugu dhacdo caawa waad kala wareegaysa marka xumad jabinteeda ay wadatay ay ifraasaadka dheecaamadu jidhku sii daynaya iyo difaac tamarta ilaahay u siiya taxamulkaba way ka badan yihin waxaa kale sheegeen nimankaa wax baadhay dumarku had iyo jeer mundu siqar ila alkibar markay yaryiin ilaa markay weynaadeen waxay badsadaan bay yidhaahdeen oohinta iyo ilmadaa ka imanaysa waa wax lagu nafisi kara bay yidhahdeen oo wax ka caawinaya bay waa say u yidhaahdeen cimri dherarkooda laakiin geedkii ragga la odhan jiray oohintii iyo ilmada dee wuxuu haystaa wax fulaynimo ah oo kabti buu isku sameeya uu iscaburiyaa iscaburintaasina qaraxiisay qayb ka tahay bay ilaa 6 shay bay sheegeen asbaabta keenaysa in cimriga raggu uu ka gaabto cimriga dumarka wax la yiraahdo mawsuucatul buldaan baa jira oo akhbaarta lagu sheego adduunyada sida had iyo jeer dadku ay u kala cimri dheer yihiin ummadaha mar walba raggu wuu ka cimri yar yahay xagga dumarka ilaa 5 sanadood 6 sanadood buu cimriga ka yar yahay hala yaabina reerkiinu warayso waxaad arki doontaa odayaashiina inay wada dhinteen islaamihiina wada joogaan taa waxaad ku garan karaysaa geeridu say ragga ugu badantay ama magaalada wadada xabaalaha u baxda un istaagoo jinaasadaha warayso markaa liisna ka diyaari waxaad arki doontaa geeridu inay ragga ku badantay waa xigmad ilaahay subxaanahu wa tacaala si kale haddii loo eego xagga taranka markay labaduba qaan gaadhaan rag iyo dumarku ruuxa dumarka ah muddaday tarmi kartaa way koobantay waktigay soo dhalmadaynaysaa dee ka soo qaada inay 40 ku dhalmadaysa hadday 15 ku qaan gaadhay 40na ku dhalmadaysa imisay dhali karaysay sannadood 40 15 ka jar 25 sano 25 sano dee ma wada dhali karayso waayo marka ay uur leedahay miyay dhali karaysa ma dhali karayso markay caado leedahayna dee uur ma qaadi karto ma dhali karayso waqtiyada umusha tahayna ma dhali karayso intaana marka laga sii jaro sanadahay jaanis haysatayna dhashaa wuu yaryahay laakiin kii oo ragga ahaa markii uu baalugu 15 gaadhay ilaa 80 habeen walba uu dhali karaya marka xigmadda tarankuna waa wax iska suuragala almuhim wuxuunaynu ka eegaynaa xagga cilmiyan laakiin qofkii dee cadaaladdan qur-aanku sheegay samayn karayaana wuu dhaqaaqi doonaa kii kalena xaaskiisa ayuu maaragtay iskala noolaanaya u dadaalaya mar walbana 2 qof ama 3 qof oo la dulmiyo intii la isdul saari lahaa mid kaliya loo cadaalad sameeyaabaa saxa taana intaasaynu ciddii ka xanaaqi lahayd ku qaboojinaynaa mar walbana islaamku wuxuu yeelo facala ra'si wal cayn ilaahay rasuulku kol hadday yidhaahdeen waa aqbal leh iimaanka saxda ah sidaas